على قرني أدوس كون نقول لمر أدوس نقول لمر توها نقول مركان aynu isla tuurno codka aynu siino aynu ugu cimaamadno qoran maxaa Cabdille tobanka qabiil oo galmudug cid kasta wax garanaysa qorno codkiina siiyaan leh inay maanta nala soo saaraan musharaxa xildhibaan qorana maxamed Cabdille qorana aguulista waa bulshada aguulista inay codkooda siiyaan qorana xundubay qorana xundubay waxa rabaa inay raado saaxib soo dhawow qorana guul baa ku rajeynaya saaxib soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad كبحداك شودا مرنا بقلبي هذا دفكاكا مياك كبحدا قلوبتا مياك كبحداك شودا مرنا بقلبي هذا دفكاكا بامرق هذا المياه مركي واركان حسوستا قربة مهشدة وحيسا مركز تبعتودا يركب أحلى قلوبتا يركب أحلى كشودا مرنا بقلبي هذا دفكاكا يركب أحلى قلوبتا يركب أحلى كشودا مرنا بقلبي هذا دفكاكا بامرق هذا المياه مركي واركان حسوستا مشرح أي وديسي قرنة قبل كان ده وأنا سيف عنه قرنة إنه إن مدة كسر شقي حدنا كشقي تشوجا حلقي مقالة ده أنا كنت حالة بدن وحن أقولنا هي بنيرتي كسر شقي سينو كم ده سيدا كلا وحنا كم ده واجه الرجل عيدا كي مدني جاء لو أساسي مقالة قال كعيو قيبت كعها ما تري كري قرني سيدا كلا وحها استعجلك لبعض الجدي كده الرادي كشغين شري نبضي أنت مدرسة سيدا كلا قدومي وحها حضر أنا وأنشجنا ومشرح ونقدنا سيدا كلا وكم دي كمبنياش قال كعيد شوجا وشقي بالشدة ما لاحظوا كم دي هاي وأنا أقولنا هاي مركا قرني من سفاع ونقنا واي هذول ما أنتوا شرحي إنه مشرح نما حلمان وياهاي أنا قابل بالشدة ما أنتوا عد كذا سين دونتو صوبته قفة تقاني أيها وحلو ديبتها يدخل مركا سيد هرماه أول نين دورته ولا يسوي جد بي وهو يحدد أو قفة تقاني عد كذا سين مركا أنا قرني سفاع أنا واقعنا أنا هذا مقالة رجي هوري وهو أنت تشوي حد تشوي ومضي هاللي نكاس وسود وين يعد كنا وسيننا أنا قرنا فاستي هاي وهو دي عد كينا نسينا هايو أنا دي وأمسين هاي bulshada kale to galka ay ka codeynaysan sidoo kale to sababtoo qof birka maalin deegaanka wax ku soo celinaya la rabaa anigu aaminsanahay qoran deegaanka wax ku soo celinaya in magaalada wax ku soo celinaya uu yahay sidoo waxaan galka ay joogta oo codeynaysa oo dilay ku runo yahay gobolkan joogta aan la qoranay adus kow noqon lambar 1 dus noqon lambar 2 ha noqdo waa maasantiin magacaygu waa Saadi Cabdirasaaq Maxamed waxaan kamid ahay dhalinyarada gobolka Mudug waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo musharax xildhibaan golaha wakiilada galmudug qorane maxamed Cabdille waxaan isleeyahay qorane waa qofkii ku haboonaa kursigaas qorane maxamed Cabdille waxaan ku xasuustaa xilliyadii adkaa ee gobolka Mudug soo maray doorkii muhiimka ahaa ee uu ka qaatay nabadeyntii isdhexgalkii beelaha walaalaha ee wadada gobolka Mudug waxa la yiri ninaan dalkiisa jeclayn ninaan dalka jeclayn dadkana ma jecla maadaama qorana uu yahay nin aanan weligiis deegaanka ka bixin in badan ugu soo shaqeeyay ganacsiga horumarinta nabadeynta isdhexgalka intaaba uu door shariifa ka qaatay waxaan isleeyahay waa ninka kaliya ee reer Muduga xaqa ay ku leeyihiin dawladaha uga soo dhicin kara sidaa daraadeed codkaygana waxaan ku biirinayaa qorane maxamed Cabdille dhammaanteen reer Mudugna waxaan leenahay markaan aynu isla tuurno codka aynu siino aynu ugu cimaamadno qorane maxamed Cabdille taariikh nololeedkiisa waxbaan ka garanayaa qorana wuxuu aan jiray ganacsade waana nin jaamacad ka qalijibiyay waa nin bartay cilmiga dhaqaalaha iyo maamul wanaagga waa nin gudoomiye ka ahaa madarta isdhexgalka nabadda waa nin nabadii gobolkan lagu degay oo reer Puntland iyo reer Galmudug ku wada degeen ay ku caanamaaleen hormood ka ahaa marka maanta hadduu isku soo sharaxay xildhibaan Galmudug
reer galmudug wuu anfacahayaa bulshada gobolka mudug gaalkacyo ku noolna waxaan leeyahay bahda waxbarashada iyo dadka shacabka iyo dhaqanka iyo cid kastaaba war qorano codkiina siiya qorano haddii la doorto waxaa laga firi karaa gobolka mudug iyo reer galmudug iyo soomaali inuu wax tari karo gobolka mudug wax badan baa xaquuqdiisa laba gobol baan u qaybsanaa xoogaa dadku waxay lahaayeen galgaduud iyo sida xun miisaaman yihiin ma saxna waxaan qabaa qorano hadduu meesha tago reer galmudug inuu wax weyn tari doono gobolka mudug tari doono dadka uu ka soo jeedo wax tari doono qorano waa nin nabadda ka shaqeeya waa nin aqoon leh hadda shirkaddan beeko oo korontada ayuu kambaliyaa wuxuu bixiyaa mashruucyo badan ka bixiyaa madaxeedu hormoodu yahay marka qorane aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa bulshada reer gaalkacyana waxaan leeyahay iyo gobolka mudug dadka ku dhaqan iyo guud ahaan galmudug iyo 12 qabiil oo galmudug cid kasta wax garanaysa qorano codkiina siiyaan leeyahay sidaasaan leeyahay anigoo suldaan cumar cadceed jibcaale ah sidaas ayaan leeyahay magacaygu waa nagaya xasan haybe waxaan u arkaa musharaxnimada qorane maxamed cabdulle qorane xundubey nin dhallinyaro firfircoon karateeriya lagu xusha leh aan ka rajaynayno hadduu maanta xildhibaan iyo matalaad galmudug nooga qabto inta hadda uu qabtay ka badan aan ka rajaynayno insha allahu tacaala intaan ka aqaano aniga garashadayda 2003 ayaa asbarannay ilaa yowmina haada waxaan ka soo wada shaqaynay nabaddii iyo isdhexgalkii gaalkacyo ganacsi baan ku soo wada galnay nin dhallinyaro ah oo xag diineed iyo xag akhlaaqiyeed ka dhisan la oran karo maanta hadduu xildhibaan noqdo matalaad dhab ayaa gaalkacyo helaysa insha allah haddii la filayo waxaan rajaynaynaa matalaad fiican oo dhaba galmudug inaan ku yeelan doono horay waxaa intaan aqaano wuxuu soo qabtay gudoomiyihii madashii isdhexgalka marbuu urur ganacsiga gudoomiye nooga ahaa nabadda gobolkaana qayb weyn ayuu ku ahaa waxaan ugu baaqahayaa dadka shacabweynaha gobolka mudug inay maanta nala soo saaraan musharaxa xildhibaan qorane maxamed cabdulle bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa doctor sacdiis siciid cali waxaan ahay dhaqaatiirta gobolkan ka howlgala waxaan halkan kasoo dhaweyneynaa oo ka taageerayaa xildhibaanka wakiilada ee galmudug mudane qorane maxamed cabdulle qorane waa nin aan aqoon dheer u leenahay waan aqaano kuna naqaano shaqaynta bulshada iyo maxaan ku dhahaa ka warqabkooda wuxuu ka qayb qaatay oo qayb weyn ka ahaa madasha nabadda isdhexgalka ee gobolkan mudug labada maamul ee walaalaha puntland iyo galmudug wuxuu ka qayb qaatay inay maxaan ku dhahaa maanta nabadaas ay waarto oo ilaa iyo hadda la isdhexgalo maxaan ku dhahaa la isku gudbo labada dhinacba ganacsi hadday tahay waxbarasho hadday tahay iyo wax kasteeto wuxuu ka mid yahay bahda rugta ganacsiga ee gobolka qorane wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada gobolkan ka warqaba wax ku soo bartay ilaa iyo haddana ku dhex jira weliba khaasatan bulshada aada uga warqaba kuna dhex jira mar walbeeto qorano guuleystaa waa bulshada oo guuleysata maadaama markasteeta baahiyaha bulshada uu aada uga warqaba rajaynaynaa qorano hadduu xilkaas ku guuleysto maadaama bulshada uu ka warqabo magacaygu waa cabdisalaan maxamuud weheliye kana mid ah dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaan soo dhaweynayaa musharax xildhibaan golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug saaxiibkay qorane maxamed cabdulle qorane xudumey oo ah haldoorka degmada gaalkacyo qorane waa nin dhallinyaro ah oo ah dadka dhallinyarada degmada gaalkacyo wax ku soo bartay waxbarashada aasaasiga ilaa heer jaamacadeed waa dhallinyaradii xilliyadii kala duwanaa oo duruufihii cuslaan lasoo maray gaalkacyo waxqabad weyn ka soo muujiyey dhan kasta ha noqoto dhan colaad ha noqoto dhan abaar ha noqoto dhan nabadeen ha noqoto dhan kasta waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo codkaygana ku biiriyo xildhibaan musharax golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug waxaan leeyahay saaxiibkay inuu guul iyo waxaan rajaynayaa barwaaqo waxaan rajaynayaa inuu noqdo dhallinyaradu inay maanta codkooda ku ciilbaxaan ahna inay doortaan dhallinyaro waxbaratay oo deegaanka xiliyo badan soo joogtay aqoonna u leh matalaad fiicanna leh waxaan u rajaynayaa saaxiibkay mustaqbal fiican waxaan rajaynayaa haddii ilaahay ku guuleeyo macnaha ii sheeg xilkaas uu raadinayo inuu deegaankiisa siduu hadda asagoo aan xilhaynba uu u dhex fadhiyo asagoo xil hayana inuu u dhex fadhin doono
una adeegi doono bulshadii shalay uu xilla'aanta ugu adeegi jiray inuu maanta asagoo mansab iyo xildhibaan noqday inuu ugu adeegana waa rajaynaya haddii alla idmo waxaan leeyahay oo ugu ducaynayaa ilaahay subxaana watacaala inuu ku guuleeyo ilaahay inuu ku caybasturo qorana guul baa kuu rajaynaya saaxiib soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad kuraasta noocaasa waana kugu bogaadinaynaa dadkuna markay bosishinadooda iyo shaqooyinka ay hayaan iyo gobolka ay ka soo jeedaan wax u qabtaan bay mid ka koreeya iyo galmudug iyo soomaaliya u gudbi karaan marka qoran waa nin ku adkaystay muddadii aadka u adkayda gobolka aan joogno nala joogay runtii dhinaca businesskana saaxiib fiicana la ahaa haddana hadduu siyaasadda baxay waxaan leeyahay saaxiib maane hore u soco insha allah waa gaari doonta halka u socotid garabkaaga taagannahay waan kugu hambalyaynaynaa runtii qoraneed intaan ka filayno waxaan filahayaa inuu sida aan hadda ku barannay inuu sii ahaado oo kasii siyaadiyo gudoomiyaha madasha nabadda isdhexgalka galmudug iyo puntland xilli dagaallo culus jahliga ka dhaceen kaalkacyo lagu kala qaxay ninkii u istaagay gudoomiye u noqday nabadda ilaahay baa keenay laakiin baalka la yiraahdo u istaago u dadaalay buu ahaa ilaa aana nabaddii lagu caanamaalayo kaalkacyo labada dhinac maanta sidoo kale aduu yahay musharax xildhibaan u taagan galmudug aad ayaan u soo dhaweynaynaa waayo nin waxaa weeye hal abuur leh nin danta qaaska iyo danta guud hormariya sidaan ku aqaanay Qorane Xundubey waayo asagoo aan xildhibaan ahayn ama siyaasi ahayn ayuu ku soo shaqeeyay isdhexgalka arrimo badan oo bulsho marka hadduu maanta uu noo noqdo xildhibaan uu noo noqdo waxaan rajaynayaa nin u qalma ama ka bixi kara adeegaas inuu yahay waana soo dhaweynayaa dadka shacabka oo reer kalkacyo waxaan u baaqayaa inay codkooda siiyaan Qorane Xundubey xarunta ugu weyn ee warshada isbuunyada barako waxa ay ku taallaa koonfurta magaalada Gaalkacyo sidoo kale waxay xarumo ku leedahay magaalooyinka Cadaado Dhuusamareeb Gurceel Caabudwaaq iyo Garowe haddaba wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada kale ah Hormuud Eberle 559 9613